bishii Ramadaan waxa inooga hadhay maalmo aad u kooban. qofka muslimka ah waxa looga baahan yahay bisha Ramadaan intaanay soo galin ka hor in uu la yimaado dhowr qodob. arinta koobaad waxay tahay walaalayaal waa at-tawba, in aynu toobad keenno oo xagga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aynu soo noqonno. toobad walaalayaal waa arrin madluuba oo Ilaahay tabaaraka wa ta'aala uu inaga doonay. toobad walaalayaal waa in macaasida iyo dunuubta iyo waxyaabaha Ilaahay subxaanahu wa ta'aala cadho gelinaya faraha inaynu ka qaadno u soo noqonno xagga Ilaahay tabaaraka wa ta'aala. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa uu leeyahay yaa ayuha alladhiina aamanuu tuubuu ila Allahi tawbatan nasuuxa عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يجزي الله النبي والذين آمنوا معه. أن ولا ليال الله تبارك وتعالى وحاول نوغيريا توبة إن أين حقي سأنقنه ومعاسدة يظنوبته يوحيابها إن فراه كنجرنه إلهي تبارك وتعالى عرقرينيا إن أين فراه كربحنه إن أين طاعة إلهي أمرك إلهي سبحانه وتعالى ونقنه. إلهي وحل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. كو إيمانك لغه اليوم إلهي وتوبة كان حق إلهي النقضة توبة نصوحا. يضو توبة دينو أيتهاي توبة نصوحا وبمعنى وحويا أتكذب شيء سن توبة دينا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم وحد مدنتين لغيابا إلهي تبارك وتعالى إن أضافوا ذنوبتا يا سيئاتك يا حمانها مركا إذن كداعي ولا ليا الله تبارك وتعالى وحو إنوغو باقيا وإنوغو يريا توبة يا إن أين حقي سأصول نقنه توبة واد أركتا ولا ليال وحالوه ليا ذنوبتا يا معاسدة إنك دعيسا إن إلهي تبارك وتعالى وإنك دعفه. إلهي سبحانه وتعالى مركل وحو ليهي وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. إلهي التوبة كان ربيين استغفار ويديستا كدبنا التوبة كان وحقيس وحويا المرك الصون نقضى ولا ليال. إلهي تبارك وتعالى وحو ليهي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الضوء ضيديو وادقفيسان habeen kasta iyo maalin kasta dambi baa idin ka dhacaya aniguna waxaan ahay ka dunuubta dhamaanteed dhaafa istighfar iyo dambi dhaaf weydiista aan idin ka aqbalo oo aan idin ka dhaafee. walaalayaal qof kasta muslima waxa waajib ku ah Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu xaqiisa u soo noqdo bisha Ramadaan. walaalayaal waxaynu doonaynaa qalbi xumaan oo dhan ka fayow oo ka badqaba oo saliima in aynu ku qaabilno bisha Ramadaan. waa si cibaadada bisha Ramadaan ay noogu dhadhanto oo waxa weeyaan macaan inoogu yeelato. waayo qofka muslimka ay qalbigiisa hadii xumaan ay ku jirto iyo macaasi cibaadadu way ku cuslaanaysaa. cibaadadii waxa weeyaan nashaad iyo firfircooni u heli maayo, culays baa saarnaanaya. sida awgeed waxa laga rabaa qof kasta muslima rag iyo dumarba Ilaahay tabaaraka wa ta'aala xaqiisa inay u noqdaan oo maalmaha bisha Ramadaan waxa weeyaan ka dhiman ay toobad keenaan si Ilaahay tabaaraka wa ta'aala ugu fududeeyo bisha Ramadaan cibaadaduna oo ay dhadhan iyo macaan marka ay ugu yeelato. walaalayaal rasuulku wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wa salaam toobada qofka waxa weeyaan muslimka Ilaahay tabaaraka wa ta'aala u toobad keeno in Ilaahay tabaaraka wa ta'aala toobada noocaasa uu ku farxo. Ilaahay tabaaraka wa ta'aala aad buu ugu farxaa adoonkiisu marka uu toobad keeno. aynu walaalayaal toobad keenno oo aynu xumaanta iyo macaasida aynu faraha kala baxno. toobadu walaalayaal waxay ku dhaboobaysaa dhowr arrin. arrinta koobaad walaalayaal dambigii iyo macaasidii iyo xumaantii inaga dhacday amba inuu teen ku dhex jirno aynu sameynayno aynu ka tagno faraha aynu ka qaadno walaalayaal. arrinta labaad ee qofka muslimka laga rabaa waa inuu ka murugoodo xumaantii iyo waxa weeyaan macaasidii ka dhacday ka murugow oo ka qoomamee. arrinta saddexaad walaalayaal waa inaad go'aan gaadho go'aan rasmi ah oo aan shaki ku jirin oo noqnoqod lahayn
in aad waxa weeyaan arrinta iyo xumaanta iyo macaasida dib oo dambaysa in aad ugu noqon doonin waan ogahay nafta bani aadamka ahi iyada ayaa xumaanta dadka amarta inna an-nafsa la'ammaratun bisuu imra'atu al-aziz waxay leedahay naftu waa ammaara waa mid amarta xumaanta qofka ay ku jirto shaydaanna uu weheliyaa balse walaalayaal waxaynu u baahannahay toobad dhaba ilaahay tabaaraka wa tacaala in aynu u toobad keenno waxaad ogaataa haddii aanad toobad keenin oo shuruudda ay leedahay aanad la iman toobadeenni waxay noqonaysaa toobad aan la aqbalin marka aad toobad keenayso waa in aad la timaado caziima iyo go'aan kana tagto ficilkii xumaanta aad samaynayso ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay walaysat at-tawbatu lilladheena ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hatara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an tawbad umay sugnaanin kuwa samaynaya sayyi'aadka iyo xumaana maxaa loo baahan yahay markaynu toobad keenayno ficilkii iyo xumaantii iyo macaasidii walaalayaal faraha in aynu kala baxno oo aynu ka tagno oo aynu ka fogaano ayuha almuslimuun waxa loo baahan yahay in aynu la nimaadno toobad dhaba oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu inaga aqbalo waxaynu ka toobad keenaynaa xumaan oo dhan waxaynu ka toobad keenaynaa xijaab la'aanta gabadha muslimadii waa inay ka toobad keento xijaab la'aanta iyo astur la'aanta waa inay xijaabato oo jirkeeda asturto oo ka fogaato markaa waxyaabaha cadhada ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo jiidaya waa in dadka muslimiintii bisha ramadaan ay ku qaabilaan cibaado ay ku qaabilaan qalbi fayow ay ku qaabilaan qalbi waxa weeye nashaad u haya cibaadada oo cibaadada u soo jeeda waxaa loo baahan yahay bisha ramadaan in aynu dalabno dembi dhaaf si aynu u helno fadliga iyo wanaagga ilaahay tabaaraka wa tacaala bisha ramadaan u dhaxdhigay macnuhu ma aha bisha ramadaan in aynu siyaasano walaalayaal xumaan iyo macaasi dadka qaar baa cagsiga sameeya oo bisha ramadaan xaggii dunuubta iyo macaasidii waxa weeye 12 bilood ay soo galeen isaga meeri lahaayeen oo ilaahay tabaaraka wa tacaala fadligiisa iyo nicamkiisa ay raadin lahaayeen bisha ramadaan dambi iyo macaasi kala sii siyaasada وهذا وحوي مصيبة وحلو بهاي ولا ليال كوبي طبعاً بلادنا صار دافي إن أينو سكما إنه حمانتي معاصي إن قد عدي كوبي طبعاً بلادنا كله صار سعلا وحلو بهاي هاي قفك مسلم كوربا وبهاي قفك مسلم كاي إنه أصله قاطو سي وجهه وحوي نفطه يا الشيطان يا إبليس وهالكسوجية marka waxa loo baahay bisha ramadaan in aynu isilaalino in aynu toobad keenno bisha ramadaan ka hor hadaynu toobad keenno shayaadiinta waa la xidhaya sida rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam shayaadiinta marka la xidho waa adiga naftaada iyo cibaadadaada balse waxa loo baahay qofka muslimka shay kasta oo sababi kara in uu ka hor istaago amba uu carqalad ku noqdo cibaadada oo isaga ilaahay tabaaraka wa tacaala uu kala teedo qofkaas sheegay inuu ka takhaluso waxa laga yaabaa bisha ramadaan haddii aad tahay gabadh muslimada inaad u sii diyaar garowday filmada musalsalaadka ah ee waxa weeyaan noocyada kala duwana ee bisha ramadaan loogu talagalay dadka in ajarkoogii maalinta waxa weeyaan soonkay maalintii soomanaayeen iyo ajarkoogii in laga nusqaamiyo habeenana qof wuxuu ku soo jeedayaa lahwi iyo mala yacni iyo wax ilaahay tabaaraka wa tacaala cali gelinaya maalin uu hurdaya waxa loo baahan qofka muslimka ah inuu noqdo qof soo jeeda oo adduunyadiisa inta uu joogo shaqaysta aakhiradiisa ka fikira adduunyada waa laga wada tagaya innaka mayitun wa innahum mayitun nabi maxamed baa lagu yiri calayhi salaatu wasalaam nabiyullaahi maxamed waa dhimanaysa adduunyada waad ka tagaysaa iyaguna gadaasha dabada way dhiman doonaan walaalayaal qofka muslimkii waa qofka aqliga badan ee soo jeeda ee waaqiciisa iyo xaaladda uu ku nool yahay dareema ee ogaada reer galbeed maanta waxay nagu soo qaadeen duulimaad kii u dambeeyay waxay la dagaalamayaan caqiidadeena waxay la dagaalamayaan iimaankeenna waayo waxay ogaadeen halka arrin ee ummadda muslimiinta ku daciifaysa inay tahay in waxa weeye xagga iimaanka laga soo weeraro waayo iimaanka hadduu daciifo qofkii muslimka waa daciifaya waxa weeyaan wanaagna amri maayo xumaanna reebi maayo walaalayaal waxaa loo baahan yahay iimaankeena iyo qalbigeenna in aynu ilaashano ummad muslimiin aynu nahay filin aynu daawano iyo musalsalaad waxba inagama gelin laakiin naftu waxay jeceshahay waxyaabaha macmacaanka ee maala yacniga in ay ku meeraysato rasuulku wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam oo dadka ku miithaaliyey rasuulku wuxuu waxaad la mid tihiin sidii nin dab waxa weeye meel cidlaa ka shitay
dabkaana waxa ku daadanaya oo doonaya inuu galo xasharaadka iyo cayayaanka meelaha jooga dabeetana ninkaasi dabkii wuxuu ka babinaya oo ka celinayaa cayayaankaasi inay ku daataan idinkuna rasuulku wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam naarta doonaysa inaad ku daadataan aniguna guntigan idin hayaa oo waan idinka soo qabanaya waxaa loo baahan yahay walaalayaal qofka muslimka ah gabadha muslimadda ah inay noqoto mid ka fikirta aakhiradeeda dambe mid ka fikirta hor istaaga ilaahay tabaaraka wa tacaala su'aalaha la weydiin doono maxaad kaga jawaabi doontaa shabaab baa tahay maanta ma ka faa'iidaysatay dhalinyarnimadaada waxaad haysataa maanta caafimaadkaaga ma ka faa'iidaysatay waxaad tahay maanta qof aan mashquulsanayn oo ilaahay tabaaraka wa tacaala waqti iyo fursad uu siiyey ma ka faa'iidaysatay jawaabaha waa inaad waxa weeye su'aalaha noocaasa jawaabahooga waa inaad diyaarsato waqtigeena walaalayaal iyo cumrigeena haysano aad u kooban yahay waxa weeyaan waa 60 ilaa 70 inta u dhaxaysa suu rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam wixii 70 ka gudba aad bay u yaryihiin taana maanta waaqaca iyo xaaladda way la soconaa dadka ay la noolnahay marka waxa loo baahan yahay qofka muslimka ah noloshiisa uu nool yahay xayaatada in uu ku dadaalo ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu adeeco ku dadaalo ujeedadii hadafkii loo abuuray inuu xaqiijiyo oo ah cibaado iyo toobadkeen iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala xaqiisa loo noqdo in walaalayaal ummadda muslimiinta ah waxa la gudboon in ay toobad keenaan ka hor intaanay odhan qaala rabbi irjicuuni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qaa'iluha qofkii markay nafti u timaado ay geeridii ku soo xaadirto oo waxa weeye murkimoodkiina uu dabcan nafta ka siibo ayaa qofkii u calaacanaya wuxuu leeyahay rabbigayow celi adduunyadii igu celi waxa laga yaabaa camal wanaagsan inaan soo sameeyo acmaashii iyo khayrkii iyo abwaabtii waxa weeye khayraadka sadaqadii salaadii toobadii soomkii faraa'idii aan dayacay in aan dib ka soo hagaajiyo oo aan dib ka soo sameeyaa laga yaabaa rabbigayow celi markaas waxa la leeyahay kalla كيابن إنه عليه إسكدافه إنها كلمة هو قائلها كيابن بالورنيا كلمة داسية هذا الكاس يري هو قائلها إسكيري بمعنى وح اعتباره يتحجرنا قف كاس هذا الكاس وحويان لو تحجرنا ما شرته هالكاس أنا وحوي وركيسه كل مانيا وايع عفمات بوهيستي رسولك روح الله عليه الصلاة والسلام لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها توبadu ma go'do oo qofka laga ma aqbali waayo ilaa cadceedu ay ka soo baxdo maanta halka ay ka dhacdo walaalayaal toobada laba xaaladood lama aqbalo xaaladda koobaad cadceedu maanta halka ay ka dhacdo haddii ay ka soo baxdo toobad la aqbali maayo arinta labaadi halka kalxamaha naftu haddii ay soo gaadho lama aqbalo toobada labada xaalad wixii ka horeeya waxa loo baahan yahay qofka muslimka inuu toobad keeno ma ogin gooreen dhiman doono ma ogin waxa weeyaan inay dhiman doono saacadaha soo socda ma ogin inaynu gaari doono bisha Ramadaan marka waxa loo baahan yahay qofka aqliga badan ee muslimka ah waxa loo baahan yahay inuu toobad keeno waqtiga iyo saacada ugu dhow inuu toobad keeno markasta waxa weeye uu ku dadaalo saacada ka dambaysa inuu toobad keeno si isagoo waxa weeye toobad keenay dunuubta iyo macaasidii faraha kala baxay waxa weeyaan walaalayaal nafta looga qaado waxaynu u baahanahay bisha Ramadaan in aynu toobad keeno dunuubta iyo macaasida faraha inuu kala baxno dhalinyarta iyo odayaasha iyo dumarka iyo waayeelka intuba in ay qaabilaan bisha Ramadaan ku qaabilaan qalbi wanaagsan sida aynu u diyaar garoobino bisha Ramadaan soomkeeda in guryaha u hagaajinayno masaajidada aynu u hagaajinayno waa in waxa weeye cuntada noocyada kala duwan guryaha u soo dhigayno arinta waxa mudan marka koobad walaalayaal qalbigeena aynu waxa weeye cibaadadu ay galayso inaynu hagaajino qofka muslimka qalbiga waa inuu hagaajiyo qalbiga marka hore inuu hagaajino dunuubta iyo macaasida inuu ka saarno maanta waxaad garanaysaa haddii aad damacdo koob biyo inaad biyo ku shubato aba koob waxa weeye wax ku cabto koobkaasina wasakh uu leeyahay marka hore waxa kula gudboon koobka inaad nadiifiso oo waxa weeye xumaan wixii ku jiray qashinkii amba uskagii almuhim wixii ku jiray inaad ka nadiifiso waxa weeye koobka si aad ugu cabto isagoo nadiifa biyihi sidaas oo kale waxa loo baahan yahay qalbigana in la nadiifiyo si cibaadada bisha Ramadaan ay u gasho ay noogu dhanto waayo qalbiga laba shay u baagala amba waa inay xumaan ku jirto amba waa in waxa weeye qalbigii uu khayr iyo wanaag u galo waxa loo baahan yahay walaalayaal bisha Ramadaan in aynu ku qaabilno qalbi wanaagsan iyo cibaado waxa weeyaan dhadhankeeda leh waxaynu u baahanahay bisha Ramadaan xagga Ilaahay tabaaraka wa tacaala in aynu u soo noqono
وذنوبته iyo macaasida ka soo noqono oo aynu faraha ka qaadno ummadda muslimiinta wixii aynu ku gafnay aynu xamanay waa inaynu ka xalaashano cidii xoolo ka dhacnay amba waxaynu ka qaadanayna xoolihii waa in loo celiyo waayo toobad waa laba shay ka toobad keenaysa waa laba amba waa shay adiga ilaahay idin dhaxaya amba waa shay ilaahay tabaaraka oo adiga iyo idin dhaxaya waxa weeye makhluuq iyo dadkii kale walaalayaal waxa loo baahan yahay bisha Ramadaan inaynu toobad keenno oo aynu waxa weeye dunuubta iyo macaasida ka toobad keenno